magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal maanta waxaa soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayo xogayaha guud ee ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa dalka Soomaaliland kuwaasi oo ka qayb galay munaasabadaha ballaaran ee lagu xusayay xuska munaasabadda 18 May ee ku beegan markii ay Soomaaliland dib uga soo noqotay madax bannaanideeda dalweynihii la isku oran jiray Soomaaliya 1991 wafdigani haddaba maanta soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa horkacayay wasiirka wasaaradda beeraha, wasiirka wasaaradda caafimaadka, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda ganacsiga, wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland. wafdigani ayaa waxay booqdeen dhaambiyood loogu talagalay inay mustaqbalka magaalada Boorame ka cabto iyo weliba jaamacadda Amuud ee magaalada Boorame. wafdigani oo haddaba hogaaminayay gudaha magaalada Boorame markii ay soo gaareen barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro ayaa haddaba markii ay booqdeen dhaambiyood loogu talagalay mustaqbalka magaalada Boorame ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda Shaabe ee magaalada Boorame ee gacanta ku haysa adeega biyaha mudane Maxamed Nuur Faahiye waxaanu halkaasi ka sheegay taasi waa koritaanka magaalada iyo sida consumptionku uu biirayay ummadii Ilaahay oo dhan baa isugu yimid meesha dadkii way ku soo bateen biyihina way ka bateen iyo awoodoodii waxa African Development Bank laba meelood noo saamiyay labadii meelood waa labada wuxuu qaadi karayaa 6 milyan oo mitir koob maalintiina waxa laga heli karayaa 16,000 oo mitir koob waa kaasi yaa cid idinka sokay cid ehel gurmad nooga sokeeya ma jiro geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saad waxaanu halkaasi ka sheegay Boorame oo aan filayo marka dariiqa Djibouti iyo Boorame isku xidhmo in population ku aw 3-4 laabi doon laakiin sabiyo markaad eegto waa zero sidoo sheegay maalin buu madaxweynuhu yeeray wuxuu yiri Boorame in laga kala guuriyo moogtahay wuxuu yiri study hala soo sameeyo si loo safkariyo hadii kale laga kala guuriyo halkan waan imanay study bay soo sameeyeen waa sida uu sharaxay marka idinka waxaad ku yeelno horta inaad aragtiin oo dhulkii aad barbari ku ciyaari jirtay warahan waa ku kori jirtay inaad aragtiin in the first place wada dadaalo ma lihi Djibouti ulay ya laakiin Djibouti waa wada leenahay tan waa wada leenahay bari markuu dariiqa sameeyay walka aan filayo in moogtahay si fiican loogu dhasto wafdigani oo sidoo kale booqday jaamacadda Amuud ee magaalada Boorame ayaa halkaasi waxaa kala hadlay gudoomiyaha jaamacadda Amuud Suleymaan Axmed Guuleed waxaanu halkaasi ka sheegay amar ku bixiyay waxa siisan waa jaamacad magaalada kuma taalo laba baso cusub 400 oo furniture oo cusub marka wax yar oo secondary hore ka haray baan indhaadaygu ma ku wadna waxana jaamacada cusub marka la sameeyay maca Djibouti waa caloladaygu marka wax lagu sameeyaa adoo waxa isaan leedahay tawakkal Allah ilaahu inta kale igu dar tayadu indhaadayg bay ahayd waxba ma nahayn marka tawakkal Allah bay ahayd tawakkalkiina Djibouti ay ilaahay noogu soo dhiibay 400 habadoo furniture hal la siiyo 12 computer Soomaaliland hal computer ma oolin lama aqoon bariga waa 97 12 computer barigi Djibouti nalalka cusub ay la timid mishinada waaweyn bay nalku ku jiray laba mashiin oo waaweyn hal la siiyo oo Boorame geeyaan oo lacagta ay ka helaan waxa kale oo istan loogu daray hawlo badan oo kale loogu daray horta aradeelkii noogu horeeyay aqoonsi iyo waxtarba Djibouti bay ahayd marka maanta waxaan idinku soo dhaweynaa salaanta iyo mahadad naga gaarsiisan dadka iyo dawladda Djibouti runtii Hussein Ataye Gafana Universal TV Boorame.